Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka ugu xiisaha badan ee geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto. Qodobada ugu doorka roon wararka aan idiin haynana waxaa ka mid ah Mustafa Cagjar oo lagu bahdilay Berbera, beelaha Jidle iyo Jareerweyn oo dagaal hor leh uu ka dhex aloosmay, Ciise iyo Samaroon oo isu hub urursanaya, wiilka ugu qanisan bilyaneerka labada sano dhanka siyaasadana ugu tunka weyn Soomaalida Itoobiya. Haddaba fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar channelka gambaleelkana furo si aad ula socoto xogaha ugu dambeeya ee channelka. Like dhac ku sii share-tana nagu caawiyo la wadaag asxaabtaada, xagga hoosena tala bixin nagu reeb. ku soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan. Wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwe Yusur. Fadlan dhagahaaga iyo indhahaagaba daqiiqado kooban iyo amaahi. wafdigii ka socday Itoobiya ee ka qayb qaadanayay xarika jarka dekedda Berbera ee Somaliland ee ay hogaaminayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Itoobiya waxaa dabadhoon ahaan ula socday Mustafa Cagjar, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida, isagoo u muuqday inuu protocol u ahaa Axmed Shide. kadib markii Mustafa Cagjar wax magac iyo maamuus ah laga siin waayay matalaadda mas'uuliyadda uu wafdiga kula socday ee ahayd inuu yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee gaar ahaan dariska la ah Somaliland. saxaafadda caalamka ee wax ka qortay furitaanka dekedda Berbera ma aysan xusin magaciisa iyo inuu wafdiga qayb ka ahaato. si bahdilan oo aan munaasab ku ahayn ayaa loola dhaqmay Mustafa Cagjar, waxaana magacii iyo maamuuskiisii marorsaday Axmed Shide oo Mustafa Cagjar ganafka ku duugay kana dhigay mid bahdilan madluunsan oo wafdiga uu iska soo raacay kadib markuu arkay inay Berbera u socdaan. Axmed Shide, hoggaanka dhabta ah ee dowladda deegaanka Soomaalida sanadahan wax laga weydiiyo, wuxuu ciyaaray xeelad uu Somaliland ku barayay inuu Mustafa Cagjar isaga dabadhoon u yahay oo uusan ba iyo ya-toon ahayn. Mustafa Cagjar soo dhaweyntii ma muuqan oo madaxiisa xagga hore ma soo marinin ee xagga dambe ayuu ilaalada iyo brotokoolada la socday. fadhigii madashana cidhif aan ka mid ahayn kuraasta marti sharafta ayuu ka soo muuqday. labada dhinacba kuma aysan xusin Mustafa Cagjar magaciisa iyo teetalkiisa toona khudbadihii ay jeedinayeen. iska badaa khudbad uu jeediyo iyo madrag uu istaago oo waqti la siiyo. haddaba dhammaan qodobadani waxay ku tusayaan inuusan Mustafa Cagjar bilowgiisu ama bixidda wafdiga uusan qorshaha ku jirin oo uu isagu iskii isaga soo raacay si shacabka deegaanka ee uu maamulo u moodaan inuu socdaalka qayb ka ahaa. laakiin xaqiiqadu iyada ayaa banaanka iskeentay inuusan qayb ka ahayn wafdiga ee isaga isku soo daray meel aan looga baahnayn, balse maxaa ka raacay oo aan bahdil iyo wejigadax ka ahayn. waxaa la ii xaqiijiyey inuu Mubashir Dubad oo Mustafaha la socday inuu ka cadhooday sida loola dhaqmay madaxweynihiisa Mustafa Cagjar ee magac iyo maamuus la-aanta ah, kana codsaday Axmed Shide in madaxweynaha maamuus laga siiyo fadhiga, khudbadda iyo xuska magaciisa. laakiin Axmed Shide ayaa jawaabta hadalkaas ku koobay inuusan Mustafa Cagjar markii horeba socdaalka qayb ka ahayn, loogana baahnayn, looguna talagelin, balse uu isagu si iskii ah ugu soo raacay qorshaha iyo jadwalka munaasabadana uusan ku jirin haba yaraatee. ugu dambeyn Mustafa Cagjar oo ka cadhaysan bahdilkii lagula kacay ceebtii ka raacday ayaa raadsaday cid uu ku yaxyaxtirto, wuxuuna la kulmay askariyad ciidanka badda Somaliland ka tirsan oo uu salaan kala duldhacay si uu isu ilowsiiyo jabkii gaadhay. ugu dambeynna markii ay xafladdu dhammaatay ayuu madaxweyne Muuse Biixi u yeedhay si uu sawiro ula galo, dadkana ugu soo bandhigo inuu qayb ka ahaa matalaadda iyo mas'uuliyadda xarika jarka dekedda Berbera.
ayaa ka jirta degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle taasoo u dhaxaysa beesha Jidlaha iyo beesha Jareerta oo halkaas wada dega. Colaadan labada beelood ayaa bilaabatay wax yar uun kadib markuu isbedelku ka dhacay deegaanka ilaa hadda oo muddo 3 sano ku dhowna way socotaa walow dhowr jeer oo Xuseen Qaasimka nabadgelyada deegaanka horjoogaha ka ah isku dayay inuu colaada damiyo laakiin sida naloo sheegay Xuseen Qaasim uu uga sii daray xaaladda kadib markuu la saftay beesha Jidlaha dambigana uu dusha u saaray beesha Jareerweynta oo goboleeyada degmada Mustaxiil iyagu uga tiro badan Jidlaha. Sida ay ila xogaalihi noogu warameen waxaa la sheegayaa inay colaad hor leh ka dhex qarxday labadan beelood kadib markay dariiqyada loo maro magaalada xidheen 5 nin oo Jareer ah. Jidgooyadaasna ay wadaan nimankaasi muddo dhowr maalmood ah oo ay degmadu weli kala xiran tahay laysuna gudbi karin goboleeyadeeda. nimankan Jareerta ah ee wadooyinka degmada xidhay ayaa la sheegay inay ku sugayaan cid ay waxyeeleeyaan oo beesha Jidlaha ka soo jeeda. warkan soo gaaray ayaa intaas wuxuu ku darayaa in nimankan wadooyinka xidhay la kari la'yahay oo waana iyo wacdiba lagaga quustay sasabaad iyo baryana iska wadaa kadib ergo dhowr jeer u tagtay. sababta ay colaadani u istaagi lahayd ayay shacabka aagaasi ku sheegeen dawlad xumo darteed oo meeshii ay dawladdu xal go'aansan iyadu ka keeni lahayd ayay odayaal xaaladda uga sii dara kolba shir aan shacabkii islaynayay laga qaybgelinin la gashaa intay shilimo siiso taasoo ku tusaysa inaysan dawladdu daacad ka ahayn xalinta khilaafadyada beeraha balse ay iyadu abuurto xalka ay dawladdu keentana oo mar walba noqonayo mid dadka baasiin ku sii shuba. dhanka kale beeraha Ciise iyo Samaroon ee degmada Dambal ee gobolka City wada dega ayaa maalmahan dambe isu hursanaya kadib markay Ciisuhu afduubteen wiil Samaroon ah oo muddo 2 toddobaad ku dhow god mugdi ah ugu jiray aadna ay u jirdileen. waa sida ay xogtu nagu soo gaadhay. Makaahil iyo Mareexaanna waxay baryahanba ku dagaalamayaan agagaarka tuulada Caleen ee degmada Shilaabo iyaga oo la sheegay in Mareexaanka laga soo abaabulo filla Soomaaliya oo ay wadaan colaad dhulballaarsi salka ku haysa. isku soo wada duubo guud ahaan deegaanka waxaa ka socda colaado sokeeye oo gacan ku rimisa kuwaasoo ay dawladdu miisaaniyado badan ku bixiso si ay dadku uga mashquulaan musuqmaasuqa dawlad xumada iyo nidaamka janjeera ee ay hoggaanka ka yihiin. Maxamed Cagjar shalay wuxuu u shaqaynayay hay'adda lokaalka ah ee Awda oo uu ugu qoraa booska xusuus dhowrka wuxuuna bishii mushahar ahaan u qaadan jiray wax ka yar $150. ma lahayn wax hanti ah wuxuuna ku jiray guri dabaqada hoose ah oo taagaas kira ahaa. waa sida naloo soo tabiyey. haddaba markuu isbedelku ka dhacay deegaanka oo uu walaalkii Mustafa Cagjar qabtay xilka madaxweynaha deegaanka waxaa hal mar iyo muddo kooban gudahood isku bedeshay noloshii Maxamed Cagjar oo wuxuu muddo 2 sano iyo badh ka yar ku noqday ninka ugu qanisan deegaanka Soomaalida bilyaneerka 2 sano. shacabka deegaankuna waxay cadeeyaan inuu yahay bilyaneer isnacay waqti xaadirkana ninka ugu jeebka weyn deegaanka Soomaalida. sidoo kale waxaa loo xaqiijiyay inuu Maxamed Cagjar yahay ninka ugu awoodda badan dhanka siyaasadda oo uu walaalkii Mustafa Cagjar magacayaal kursiga u fadhiyo laakiin ninka daaha dabadiisa ka maamula wax kala dabara dadka isku dila kala dila ka ogiya inuu yahay Maxamed Cagjar. Maxamed Cagjar waa qandaraaslaha ugu tunka weyn maanta deegaanka Soomaalida mana jiro xafiis deegaanka ka mid ah oo uusan ugu yaraan sanadkii 150 milyan oo bir ka qaadanin
taasoo uusan qandaraasyada la siiyo waxba ku qabanin ee uu jeebka ku shubto intuu wasiirada shahyar kula shuraakoobo. sida la wariyo maxamed cajar isaga ayaa keensaday dhammaan wasiirada xafiisyada horumarinta sida xafiiska biyaha, xafiiska beeraha, caafimaadka xoolaha, waxbarashada iyo weliba wasiirada xafiisyada cuncanka leh sida dakhliga iyo weliba shirkadaha iyo wakaaladaha private sector-ka ah. wuxuu qandaraasyada ku qaataa laysamo iyo magacyo shirkado kale, wuxuuna 2 sano gudahood ku noqday bilyaneer meesha ay Khadar Ilay 7 sano ku qaadatay inuusan darajadan gaadhin. waa mulkiilaha shirkadaha xawilaadaha lacagaha elektarooniska ah ee Sahay iyo Iibir, wuxuuna si dadban u maamulaa microfinance-ga deegaanka. wuxuu meesha ka saaray shirkadii xawilaadaha lacagaha ee Kaah. waxaa u xiran dhammaan ganacsiga soo gala dhagax buur, waxaana wakiil uga ah oo ay shuraako ku yihiin walaashii Farxaan Cashar. maxamed cashar sadigii oo qaba walaashii Farxaan Cashar waxaa u xiran ganacsiga jaadka ee dhagax buur. cabdiraxmaan cashar oo ah wiilkii sida gardarrada ah loo tooriyeeyey ee uu ilaahay u baxnaanshay waa maareeyaha cusbitaalka maamulka magaalada dhagax buur. wuxuuna Mustafa Cashar isku siiyey cabdiraxmaan cashar oo walaalkii ah iyo aabihii cashar muddo bil laga joogo 119 milyan oo bir oo uu ugu magac daray dayactirka dhismaha cusbitaalka dhagax buur iyo qalabayntiisa, taasoo sabab iyo magac bixin uun ah. laakiin cusbitaalku uusan dayactirna u baahnayn, isla markaana uusan cusbitaalku qalab la'aan ahayn, balse lagu naas muujinayo isaga oo maamula miisaaniyad dawli ah oo aad u badan iyo mid hay-adeed oo lagu taakulayo cusbitaalka. aabahoodna uu yahay sheefka deegaanka oo ay qasnadihiisu buux dhaafeen. wuxuu si gaar ah u maamulaa maxamed cashar miisaaniyadda xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida oo isagu wasiirka geystay maadaama oo ay qaraabo yihiin. dhanka kale wuxuu maxamed cashar si toos ah u maamulaa miisaaniyadda mashaariicaha jaamacadda Jigjiga, isaga ayaana geystay madaxweynaha jaamacadda waana jifadiisa. mashruuc uusan ogeyna meel kale ma mari karo oo isaga ayay u xirxiran tahay jaamacadda Jigjiga. halkaasna waxaa ku qatan beelaha u nasab sheegta magaalada Jigjiga. maxamed cashar wuxuu qol uga kiraysan yahay hoteelka ZM, waana meesha uu dadka khaaska ah kula kulmo laguna fuliyo howlaha kala tuurka iyo wax kala goynta. qolkaasi wuu u qufulan yahay maxamed cashar xataa haddii uu bilo ka maqnaanayo magaalada. wuxuu filooyin ka dhisay walaaladii Mustafa Cashar iyo cabdiraxmaan casharra oo uga dhisay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. wuxuu si la mid ah dalqayo ka gatay Istanbul iyo Ankarada Turkiga iyo weliba Qaahira oo ah caasimadda Masar. dhammaan hantidan cadad iyo xisaab la'aanta ah ayaa awoodan maxamed cashar uu maanta yeeshay wuxuu ku gaaray 2 sano iyo badh gudahood ee ka hor faqiir danyar ah buu ahaa. laakiin waxa heerkaas gaarsiiyey awoodda intaas la egna siiyey waa hantidii ummadda oo walaalkii Mustafa Cashar u xalaaleeyey maadaama uu maxamed cashar yahay mashiinka waqti xaadirkan kala wada dowladda deegaanka Soomaalida.